weerarkan argaxiso ma noqon sidii ay doonayeen meesha uu ka dhacayna ma ahayn gudaha dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada laakiin maleeshiyaad hubeysan ayaa gudaha wasaaradda gashay daqiiqad gudahood ciidamada amniga Soomaaliya ayaa ku soo afdiray kuna guuleysay inay badbaadiyaan shaqaalihii wasaaradda nasiib xumo wasiir ku-xigeenkii shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Saqar Ibrahim Cabdalla ayaa ku dhintay falkan argaxiso hay'adaha amniga ayaa ku dadaalaya in marka laga tago qaraxyada maleeshiyada argixisada al-shabaab in aysan geysan khasaaro ballaaran waxaana toogasho lagu dilay 4 ka tirsan al-shabaab khasaaraha guud oo falkan ka dhashay lama sheegin inta uu gaarsiisan yahay durbaba waaxda nadaafadda ee gobolka Banaadir ayaa si degdeg ah ku nadiifisay goobta kuna soo celisay bilicdii ay lahayd si ay u sii socdaan isku socodka dadka iyo isticmaalka gaadiidka wadada uu qaraxu ka dhacay maanta dabdamiskii iyo howlihii loogu talagalay ee maaragtay maamulka gobolka Banaadir u xil saarnaayeen iyo nadaafadda inaan qabanno shaqada dabdamiska waan qabanay qaybta hore way naga dhamaatay hadda bacdama ay shaqadii wareegii ugu dambeeyay ay marayso oo ah bilicdii iyo quruxdii meeshan sidii loo soo celin lahaa hadda waxaan taaganahay goobtii nadaafadan taaganahay nadaafadii socoto shacabka maaragtay waaxda nadaafadda iyo dawladda hoose iyo waaxda gaadiidka iyo dhammaan gobolka Banaadir oo dhan degmada Shangaani taliyaha saldhigga Shangaani kulli shaqadeena si fiican ay ku socotaa alxamdulillah nusu saaca soo socdo wadadan hadduu Ilaahay yiraahdo way furmaysaa shacabkana isku socodkooda dib ayuu u soo noqonayaa aad iyo aad waxaan idinka mahad celinaynaa TV-ga qaranka sida joogtada ah mar walba nooga qayb qaadataan barnaamijyada iyo howlaha horumarineed ee magaalada ka socda maasantii weerarkan ayaa u muuqda mid ay al-shabaab ku fashilmeen maadaama uu damacoodu ahaa in ay laayaan dadkii ku jiray gudaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ciidamada amniga ayaan u jawaabay oo beddelkeedu laayay kooxdii weerarkan soo qaaday cabduqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho